Kulan wacan saaxiibayaal meel walba oo dunida ka joogtaan mar kale iyo warbixinadeeni. Warbixinteenan waxaan ku eegi doonaa 10 xidig ee ugu caawinta badan kubadda cagta taariikhda. Lambarka koowaad Lionel Messi. Messi shaki la'aan waa ciyaarahanka ugu fiican adduunka. Waxa uu adduunka qabsaday tan iyo markii uu ciyaaray kulankiisii ugu horeeyay kooxda Barcelona, waxaana waqtigiisa inta ugu badan uu ku qaatay kooxda Blaugrana oo ilaa haatan qayb ka yahay. Waxa uu ka sameeyay 319 caawin. Booska labaad Cristiano Ronaldo waa ciyaarahanka labaad ee ugu caawinta badan kubadda cagta. Waxa uu u soo ciyaaray kooxo ay ka mid tahay Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid iyo Juventus oo haatan qayb ka yahay. Waxa uu sameeyay 258 caawin. Booska saddexaad waxaa kaga jira Luis Alberto Suarez. Waxa uu soo ciyaaray kooxaha kale ah Club Nacional de Football, Ajax, Liverpool, Barcelona iyo Atletico Madrid oo uu haatan ka tirsan yahay. Waxa uu ka sameeyay 256 caawin. Booska afraad waxaa ka galay warbixintan Mesut Ozil. Waxa uu ka mid yahay kubad sameeyayaasha ugu fiican qarnigan. Shaki la'aan ciyaarahanka heerka caalamiga ee dalka Germany ayaa xirfadiisa ciyaareed ka bilaabay kooxda FC Schalke sanadii 2003 ka hor intaanu ku biirin kooxda Werder Bremen sanadii 2008, waxaana kadib uu u wareegay kooxda Real Madrid ee dalka Spain sanadii 2010. Ozil ayaa 3 xilli ciyaareed ku qaatay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, waxaana 2013 uu ku biiray kooxda Arsenal, waxaana uu sameeyay 253 caawin. Booska afraad waxaa ka galay Angel Di Maria. Waxa uu waqti qurux badan ku qaatay kooxda Real Madrid ee dalka Spain, kadib Manchester United ayuu ku biiray inkastoo aanu soo bandhigin qaab ciyaareedkii lagu bartay. Waxaana laga iibiyay kooxda PSG oo uu ilaa haatan u ciyaaro, waxaana uu ka sameeyay 235 caawin. Booska lixaad Cesc Fabregas. Akademiyada caanka ee La Masia ayuu ka soo baxay. Fabregas waa ciyaarahan ka mid ah kuwa ugu fiican qadka dhexe ee soo mara kubadda cagta abid. Waxa uu matalay kooxo ay ka mid tahay Barcelona, Arsenal, Chelsea iyo weliba kooxda kubadda cagta ee Monaco oo haatan ka tirsan yahay. Waxa uu sameeyay 234 caawin. Xidiga toddobaad ee ugu caawinta badan kubadda cagta waa Xavi Hernandez, mid ka mid ah qadka dhexe ee ugu wanaagsanaa qarnigan. Xavi waa halyeey Barcelona ah, waxaana uu ka soo baxay akademiyada La Masia. Xavi wuxuu xirfadiisa ka bilaabay Barcelona, wuxuuna u ciyaaray 700 oo kulan tan iyo markii uu ku soo biiray. Xavi ayaa haatan ah tababaraha kooxda Qatar ee Al Sadd, wuxuuna ka sameeyay 230 caawin. Booska sideedaad Frank Bilal Ribery. Waxa uu caan ku yahay inuu difaacyada dhan walba u roga marka ay timaado kubadda cagta in lagu xifaaltamo. Laacibkii hore ee Faransiiska ayaa waqtigiisii ugu quruxda badnaa ku qaatay Bayern Munich, wuxuuna ku sugnaa 12 sano. Frank Bilal Ribery waxa uu haatan u ciyaaraa kooxda Fiorentina ee dalka Talyaaniga, wuxuuna sameeyay 228 caawin. Booska xiga ee sagaalaad waxaa ku jira Thomas Muller. Waxa uu haatan ka tirsan yahay Bayern Munich, wuxuu isaguna sameeyay 224 caawin. Booska ugu dambeeya ee tobnaad waxaa ku jira Kevin De Bruyne. Ciyaarahanka reer Belgium ayaa qabsaday Premier League tan iyo markii uu yimid garoonka Etihad intii lagu guda jiray xilciyaareedkii 2019 ilaa 2020. Kevin De Bruyne ayaa 20 caawin ka sameeyay Premier League, isagoo berbereeyay rikoor uu horey u haystay Thierry Henry oo hal xilciyaareed ka sameeyay 20 caawin horyaalka dalka Ingiriiska ee Premier League. Waxaana uu sameeyay ciyaarahankan caalamiga ee Belgiumka Kevin De Bruyne 216 caawin.